qaar ka mid ah dhalinyarada beesha galbeedka gobolka Sanaag ayaa taageeray dib u dhigista shirka beelaha biciide kaasi oo gobolka Sanaag ka dhici lahaa 27ka bisha 8aad ee sanadkan aynu ku jirno waxana maalintii shalay madax dhaqameed ka soo jeeda beeshaasi ay magaalada Hargeysa shaaca kaga qaadeen in shirkaasi dib loo dhigay dhalinyaradan iyo aqoon-yahankan ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta keentay in xilligan dib loo dhigo shirka biciide iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu maanta halkan isugu nimi inaanu soo dhaweyno hadalkii ka soo yeeray salaadiinta ugu faca waaweyn gobolka Sanaag hadalkaas oo ka soo ay ku qabteen shirkaas ay ku qabteen magaalada Hargeysa boqor jira Xaaji Xasan iyo Faarax Nuur Xasan waxaanu leenahay anagu hadaan dhalinyarada gobolka Sanaag nahay waanu soo dhaweynaynaa hawshan shirka biciide loo joojiyena ma aha hawl iska dhayal waa hawl weyn waxaanu leenahay haddaan anagu dhalinyaradii gobolka Sanaagna wax garadkii gobolka Sanaagna waxa hawsha loo joojiyay oo aanu taageersanahay qalalaasa ka dhacay meesha leeyahay darar weyn gobolka Sanaagna waxaanu kula talinaynaa oo aanu u jeedinaynaa in hawsha loo wada kaco in hawsha laga wada qayb qaato in hawsha lagu daawan maxay ahayd toolay odayaal in dhalinyaro wax garad aqoonyahan cid waliba halka ay tagto in hawshaasi sida ugu wanaagsan dawladda loola garab galo dawladda intii garaankeeda ahayd way qabatay yeelkeeda kaalintii shacabka baa meesha ka baxday salaadintayadii uqaashayadii maanta haday garteen in arrimahayadii danta ahaa ay u joojiyaan danguud iyo duruuf iyo dhiig maalin kasta daadanaya waanu ku taageersanaa waana arrin la soo dhaweynayo wassalaamu calaykum waxaan halkan ka taageerina hadaan nahay dhalinyaradii gobolka Sanaag taageeradii ay sameeyeen wuxuu ahaa uqaasha ee reerku caaqil wuxuu ahaa Faarax Nuur iyo suldaan boqor jire Xaaji Xasan waxaanu leenahay waan idin taageerinaa annagoo ah dhalinyaradii reerka iyadoo ay duruufo badan taagan yihiin oo gobolada gobolka Sanaag qaar meelo badan uu ka jiro wuxuu ahaa dagaalo ay ka jiraan sida awgeedna aynu wuxuu ahaa dib ugu dhigan doono shirka biciide waxaanu halkan ka taageerinaa boqor jire Xaaji Xasan iyo caaqil Faarax oo soo shirka ay kaga baaqeen ay ku nageeyeen hawsha ka dhacaysa darar weyne hadaan nahay dhalinyarada gobolka Sanaag ee beesha Basanbuur waxaanu ku taageeraynaa inay shirka si loo nageeyaan dhiigga daadanaya maalin kastaba inay saa ku dhigayaan baan ku taageeraynaa waxaan taageero ballaaran nugiyo miisaan bale waxa uga direynaa boqor Cabdullaahi Xaaji Xasan Axmed iyo caaqil Faarax Nuur Xasan baaqa ay soo jeediyeen ah inaan danaha gaarka dib loo dhigto laga shaqeeyo danaha dadweynaha iyo qalalaasaha ka jira deegaanka aanu ku degannahay qaarkii saa awgeed markay arkeen baahiyaha loo qabo in la helo nabad waarta oo ay nabadaasi tahay ta keliya ee dalkii dadkii dawladdu ku dhisan tahay markay qiimeeyeen xaaladaha imika jira iyo duruufaha waxay arkeen in ay suurto gali karin daraha gaarka iyo arrimaha khaasatan loo leeyahay in aanay mid shaqaysa ahayn ay tahay in laga shaqeeyo danaha guud iyo nabadaba waxaan kaloo halkan hambalyo iyo salaam ballaaran uga dirayaa soona dhaweynayaa wakaalada xabkaha iyo fuleenka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uga hambalyeynaya kuna soo dhaweynayaa uqaashii shalay ka hadashay shirkii biciide dib u dhigistiisii iyo gobashii Basanbuur dhigtay gobash gobolaan horta marka hore ka tashanaba maahay wax iska weydiinaba maahay wadiyaal baas wax iska yiri gobol bay ku baaqeen waxna huun bas kiila runtii uqaashii mugga iyo miisaanka kula hay reerka waa kuwa shalay hadlay gobashada dib u dhigay arrinkana haddaan laga tashan dib hadhow ku qabiyo waxaan leeyahay danta guud laga shaqeeyo waxaan ku taageeraynaa labadii madax dhaqameed ee xalayto ka hadlay media labada madax dhaqameed oo ahaa boqor jire Xaaji Xasan Axmed iyo Faarax Nuur Xasan hadalkooda oo ahaa in dib loo dhigo shirkii lagu ballansanaa inuu ka qabsoomo halkan gobolka Sanaag oo ay ku shirayeen dowladda taasoo ay keentay duruuf qalalaase ka jira degmada darar weyne oo markii hore sidan waan laga qabo la islaha sida dib u dhaama kii oo ka soo darayo maalin walba dhiigii la sii daadinayo
waxaan leeyahay cuqaasha codkarka culimaa udiinka dhalinyarada mid kasta inaynu xil iska saarno nabadgelyada darrada halkaa ka jirta waxaan ku taageeraynaa hadalkooda ahaa in dib loo dhigo waana ku qanacnay wasalaamu calaykum dhalinyartii iyo waxgaradkii beeshan waxaanu halkan ka taageeranaa cod dheera ku taageeranaa caaqil faarax nuur xasan iyo boqor jire xaaji xasan oo runtii shalaytoole shir jaraayada qabteen ku shaaciyey in dib loo dhigo shirkii biciide dana iyo duruufo jira awgeed duruufahaas ay ku saweeyeen in dagaaladan colaadan ka qaxay gobolka Sanaag sidii xalkeeda loo geli lahaa aad iyo aad baan ugu taageersanahay hadalka yiraahdeen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhalinyaro ahaan iyo waaliyaal ahaan iyo xigad ahaanna aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa kagana hari mayno goob kasta iyo mar kasta nala tigi doona anagoo kaga shaqeynaynaa in nabadda iyo xoog la saaro. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar shabakada caalamiga ee Sanaag Media magaalada Ceergaabo.